السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للي قال جواد السلامي مركله يموقع كالهبيني موناكسن سودو الأصحابي بحدي رجير أنا عارف ما قبتان من البدن دافير كتشوكتان انتي حنوسن إلى وحنا ورجينا عارف ما تامة انتي عارف ما قبتان عارف ما تكله وسياسشو انتي دمتي إلهي قبري الله واسعي رود مرياد الشان الله وقدقو أنا إله سبحانه وتعالى قداش هذا ما فينا سودو هذا عوض محنا وضع قصة سليق النبي بإذن الله الكريم هدو إلهي قدره إيوه وحيابك إن شاء الله سودو هذا maalmaha YouTube ka hoos u dhacay dadka ma arkayaan ma garanaya inuu sun gaarin in kale dad badan ana wax soo gelinay dhow waxay ugu dhaheen ayaan tan intee ka baxday YouTube kaaga ma aragno dabcan ma arkaan saan u arkaa inaysan arkin oo ma aragtay bal insha Allah biidnillah kariim isfaca loo shargareeyo isfacana loo daawado si wixii aan soo geliyo loo arko sabab wax muhiim ah mar soo gelinaa waxas muhiimka hadii aad isku soo gaarin waa dhibaato marka ay macnaha dhib waadad helin soo dhawaada qisadan waxay nagu dhiirigelinay xanuun walba iyo dhib walba ku haysto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qaadi karo hadii saliga nabiga Ilaahay ku waafajiyana oo sabab ku noqon karo inaa caafimaado ma sha Allah qisadan nin ayaa asagoo xanuunsanaya oo qaliin inuu gala rabo oo aad u xanuunsan oo liir qaliin mooyaane xaalad kalma liid oo waliba qaliinkaaga 50-50 waaye oo in aad ku boodana waa leedahay inaad ku dhimatana waa leedahay la dhahayo ayaa ilaa qof soo diray qofkaas wuxuu ku yiri warniyow xaalad shil iyo shil lama gali karo waa dhibe hadana xanuun baa ku hayee bal saliga nabiga akhri saliga nabiga ayuu akhri dhahay saliga nabiga ayuu bilaabay akhrintii saliga nabiga oo akhrinayay hadda in yar muu akhrinay 50,000 oo saliga nabiga ah ayuu gaarsiiyay ma sha Allah tabarakallah markii la rabo in la qalo oo qaliinkii qof kasta markii dhakhtarka uu rabo in qaliin iyo wax lagu sameeyo shalay hadii lagu baaro ma isbuuc kor hadii lagu baaray ee maanta qaliinka u soo diyaar garowdo iyadoo marka la qaliin baaritaan lagu marsiinin lagu ma qalaayo baaritaan hadii la marsiinin kan waxa la ogaaday inuu wax allo wixii laga qal rabo uu ka caafimaaday uu ka reestay ma sha Allah akhrintii saliga nabiga Ilaahay uu waafajiyay ninkaas Ilaahay u soo diray ayuu uga badbaaday qaliinkii uu rabay inuu galo qisadan markaan soo qaadanayo waxa uu kalifay baa jiro waan idin sheegi doonaa biidnillah kariim marka waxaad ogaataa saliga nabiga inuu ciyaar ahayn hadii aad akhrisato murug kasta iyo walwal kasta iyo dhib kasta ku hayana Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka shaafinayo ogaaw sida qofkaas qaliinka qarka u saarnaa oo liir iridka lama lihid hadana qaliinkiisa oo san ahayn 100% oo san ahayn la yiri 50-50 ku jirta ina dhimato way ma ina reesato Ilaahay buu ka baashayay dhammaan ka koriyay waa ka caafi xanuunkii dhamaay buu ka caafi markuu dhameeyay yaani oo badiyo saliga nabiga ilaa iyo 50,000 oo saliga nabiga ciyaar maaha ma sha Allah tabarakallah marka waxaan uga goleeyahay qisadan oo soo qaadanaya waxay tahay gabar baa waxay tirmaalin aad baan u xanuunsanayaa oo xanuunkeygu muddo dheer ayuu jiitamayaa quraanada akhriyo ama adkaariyo dikri akhriyana wax najiida ah oo yaani aan ka arkay ama ay jiraan wax walba waxa ogaata inay yaqiin inay yihiin hadaa yaqiin haysato Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad taam ku siinaya laakiin hadaa yaqiin haysanin oo shayga yaqiin aad ku haysan oo tijaabi aad u akhrinayso inuu tijaabo kaata aad u akhriso yaani waa dhiban tahay quraanka Ilaahay iyo kalaamka Alle iyo dikriga Ilaahay midna lama tijaabiyo bil yaqiin ayaa lagu akhriyaa bil yaqiin ayaa lagu akhriyaa gabadhaas markay arrinkaas ii sheegtay aad baan ula tiri waxaan ku yiri ma fiicno inaad yaqiin la'aan wax akhrisato inaad tira quraan baan akhrinayaa faa'iidana ma ka helayo dikri baan badinaya faa'iidana kama helay inaad tira waa dambi ama waa qalad faa'iido la'aan ma jirto inaad wax ka qaldan yihiin iyo wayma inaad faa'iidada heshooda ogeyn oo faa'iidada Ilaahay meel kale ka siinayo sabab bariyada Ilaahay saddex ay mid noqotaa waa tira dhahay shay Ilaahay ku qabto markaas hesho shay lagu dib dhigo iyo shay dhibaato yaani dhibaato socota laga celiyo saddexdaas mar ay noqotaa
gabadhaas marka maasha allah markaas waanadeedu way qaadatay dikrigii ay waday ama sadii nabiga ay akhrineysay way laasantay muddo kadib waxay tiri aad iyo aad kugu mahad celinaya sida ay ugu talisay wax aad u fiican bay ahayd sababtuna waxay ahayd markaan akhrinayo qalbigayga oon joogin ama qalbigaygu qaafil iska ah ayaan wax akhrin jiray bay tiri laakiin markaan dambe waxaan ogaaday inay aniga waxay iga qaldan yihiin ereygaas ah ducada meecda ma dhicin ee ku dambaabin waan garowsaday bay tiri markaas ayaan waxaan bilaabay anigoo jooga horta waxaan akhraa inaan akhriyo wax ka fiican malaha inaan adigoo jooga aad akhriso wax adoo jooga waxaan ka wada adoo qalbigaaga xaadir yahay kawar haddaa qaafil iska taho leeda oo iska heeda lama rabbana atina fid dunya hasanata waxaad akhriya iyo afka isla soco qalbiga isla soconi soo dhib maaha marka waxay tahay markaas kadib waxaan bilaabay anoo jooga oo xaadira inaan akhriyo hadda ka horna qisan idin soo gudbiyay gabar 8 sano qanjirkan xanuunayay oo ilaahay cudur uga dhigin oo iska ilaahay yani qof iska dukado iska cibaadeysto ilaahay iska bari ahayd laakiin maalin 8 sano kadib يعني دنير oo iska daweey karin oo qalleen iyo afaaraas awoodin xanuunkii halkan ka hayeen oo markaas sariir saaro inuu wax qabsato oo ay awoodi weyso maalin bay ilaahay si kal iyo laab u bariso macnaha maalinkaas waxay tiri gabadhaasi xibnahayga dhan baan soo xaadiriyay qalbiga kaliya iska dhaaf xibnahayga dhan ayaan soo xaadiriyay bay dhahdo faamino marka xibnaha soo xaadiriyay subhanallah isla maalinkii saacado yar kadib walaashay macaan la dhalatay 8 sano inta xanuunsanay joogtay xaalkayga ogeyd unba ilaahay ii soo diray marka ducada oo qaa'ibka macnaha ducada qalbigaaga oo xaadir oo qaa'ib aad akhrisato oo adoo ismaqlayo oo qalbigaaga iyo waxa isla socdaan aad akhrisato wax ka fiican ma laha ilaahayna wuu aqbalaa ilaahayna wuu ajiibayaa marka walaalayga qaaliga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisanayna inuu na sugo dhammaanteena qalbiyadan inuu ilaahay ka dhigo kuwo mar walba ku xiran yacni ilaahay qur-aankiisa iyo dikrigiisa iyo wacyigiisa mar walba ku xiran ilaahay naga dhiga rabbi raxmaan ka weydiisanaynaa marka aan ku dadaalno insha allah min qalbi wax kasta naga ahaadaan iyaysan naga noqonin tijaabi iyo midna yaa naga noqonin intaas uga gudbayaa hadduu alla idmaqsadii wixii aan noo waday waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego hadduu alla qadaro saa idiin sheegito hore soo soo dhacay oo maaragtay dadku ma arkayaan ma garna waxay soo arkaynin alaabaheeni aan sugaynay in badan qayb ka mid ah way noo imaadeen qaybta kale noo dhiman insha allah weega soo socda ay noo dhamaystirmayaan hadduu ilaahay qadaro maanta kilib yar oo aad u yar baan idiin soo gudbiyey laakiin dad daawaday ma arkino lama daawanin saas awgeed waan arkay inuu youtube hoos socdo oon dadka uusan gaaraynin baan arkay oo uusan u dhacaynin ma aqaano sababta marka waxaad ogaataan alaabteeni intii qayb inay noo xaadir tahay qaybta kalena jimcaha dambe ugu dambeys ay diyaar noo tahay qof walba oo doonaya alaabtaas inuu gato qof walba oo doonaya xirfadda cusub inuu inta barta maanta ku shaqeysto barta rabay alaabtii ayaan ku haynaa ayadoo dhammaystiran waxaa ku qasi lahayd hadday budo ahayd hadday weel ahayd hadday kalar ahayd hadday dhalaalisi ahayd ayu wax kasta ayaan ku haynaa hadduu ilaahay qadaro qiimaha ugu fiican oo waa dareemi kartaa intaas alaab la sugaayo wadasha laga keenay intaas la sugaayey macnaha qiimaha aan kaa nixinaynin oo macquul ah anna aan wax ka faa'iidaya adna wax kuu dhibaynin insha allah biidnillahi alkariim qof walba oo alaabtaa diyaar u ahaa oo waxaa inuu barto diyaar u ahaa soo xaadiro sakaygaa soo waco magaciisa waan qorayaa iyo lambarkiisa isku hoos qori doona insha allah jimcaha ugu dambeys alaabtan markay imaatana soo wargelin doonaa hadduu ilaahay qadaro kuweenii kale iyo waxyaabihii kale markii hore aan haysanayna iyagana waa noo diyaar sad arkaysan budadeenii wixii dhan waa noo diyaar iyo maaragtay rasinkii waxyaabihii oo dhan diyaar waaye soo dhawaad walaalahayga qaaliga ah reer qalbi wanaag waxaa idin leeyahay ismoojiya hal idin arko habeenimo wanaagsan laagta iyo shaarta iyo commentiga waa xaggiina fikradaha quruxda badan iyo wixii qisas ahna xaggiina weeyaan insha allah hadduu ilaahay qadaro wixii experience maanta aad leedahay oo dikriga kaa soo maray ama xanuun iyo dhib kusoo gaaray saadad bustay ah
walaalaha adigu faa'iideyn karto oo experience u haysato waana la wadaagi kartaa soo dhawaada insha Allah. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.